وأنا حيسة لدن مانتين باخيارته هودا نقد داوانا سايكو سودا وادا وركا عالمكو إذين كإيمانية التلفزيون كقرن كجمهورية دا سوماليلان حرونتي سمناقا لدى استقامي عرقا إسويدن ودا بدا داودا الوركا نيكو هينايا وحكم دا أفهيين كمدحتوية دا سوماليلان أوكا هدلي qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa dood ka yeeshay dibadhuska lagu sameeyay airportka weyn ee magaalada Hargeysa dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdalna waxa ay fikirkooda ka dhiibteen xeerka cusub ee horumarinta wadooyinka Soomaaliland qodobada daawadayaal wararka dibadda aan idinku haynana waxa ka mid ah sirdoonka reer galbeedka oo sheegay in kooxihii weeraray xarunta ganacsi ee magaalada Nairobi ay tababar military oo aad xoog badan ay ku soo qaateen gudaha Soomaaliya dhulgariir aad xoog badan ayaa waxa uu ka dhacay qayb ka mid ah dalka Pakistan iyadoo haatan dhimashadu ay maraysa in ka badan 200 oo ruux intaasi daawadayaal waa qodobadii wararka ugu doorka roona haatanna isagii oo fidsan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkii ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxa magaalada Hargeysa inooga soo diyaariyay waa kan wariye Ridwaan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Suleymaan Duxul ayaa xog waran uu ku siiyay warbaahinta dalka qasriga madaxtooyada Soomaaliland si qoto dheer u sharaxay nuqulka qodobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada oo uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagoo afhayeenku si gaar ah u sharaxay qodobada miisaaniyad sanadeedka 2014 oo korukac weyn oo dhaqaale uu ka muuqdo oo ay wasaaradda maaliyadda u soo gudbisay fadhiweynaha golaha wasiirada fadhigi maanta golaha wasiirada uu gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa goluhu ku ansixiyay miisaaniyadii sanadka 2014 miisaaniyadahaasi waxa loogu talagalay in ay lagu wado hawlaha qaranku sidoo soconaya ama nabadgelyo noqoto ama horumar kale qaranku noqoto miisaaniyadu marka halbuur ay ka tahay guud ahaan hawlaha qaranka miisaaniyada qarankuna ay sanad ka dambaysa ay sii korayso miisaaniyada sanadkan wasiirka maaliyadda uu horkeenay golaha wasiirada ay maanta ansixiyeen waxay dhanay 120 milyan oo dawladda dhaxaa waxa kale jira lacag kale ama miisaaniyad kale oo hay'adaha kala duwan ee qaranka ah taasoo guud ahaan marka dawladda dhaxiyada kale la isku wada geeyo noqonaysa 212 milyan oo dollar waa miisaaniyad fara badan waa miisaaniyad wax badan ka qaban doonta baahiyeena iyo hawl socodkeena runtii waxa lagu amaanay wasiirka maaliyaddu sida xilkasnimada leh daacadnimada leh kartida leh ee uu iska xil saaray inuu soo baxdo miisaaniyadani haddaba marka la isbarbar dhigo miisaaniyadii sanadkii ka horeysay miisaaniyadani waxay sanadkii ka horeysay ay ka badan tahay in ka badan 20% ayay dheertay miisaaniyadii sanadkii hore ayay dheertay miisaaniyadan wasaaraddu ay hor keentay golaha wasiirada waxa maaniyo bogaadin baa loogu soo jeediyay wasiirka maaliyadda runtii waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday runtii loogu talagalay miisaaniyadan ay ka dhiman tahay ayaan 3 bilood laba dhacday iyo arrintan kuubasa mid waxa weeye waqtiga la keenay ee la soo diyaariyay miisaaniyadda qaranka iyadoo weli aan la gaarin 2014 oo muddo ay harsan tahay ayaa dawladdan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyadoo mar walba fulinaysa hawl socodka hawlaha qaranka iyo sida baahida loogu dabo ayaa waxay soo diyaarisay wasaaradda maaliyaddu miisaaniyadda loo diyaar ah oo golaha wasiirada iyo golaha wakiilada martay ayaa ku dhaqankeedu January si rasmi u bilaabmi doona imaatikii xukuumaddan uu hagayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxay fursad shacabka Soomaaliland ay uga faa'iideystaan bay ku heleen in waxyaabo badan oo tabayeen iyo baahiyo badan oo tabayeen oo dhinaca horumarinta
in wax badan laga qabtay. afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saleebaan Duxul ayaa sharaxay doorka wadooyinku ugu fadhiyaan bulshada kuna dheeraaday qodobada kale ee lagaga hadlay shirweynaha golaha wasiirada ee maanta. wadada Ceelgaabo ee madaxweynuhu soo dhagax dhigay runtii waa wado muhiim ah, dhaqaale ahaan muhiim ah, isku socodka iyo iska warhaynta iyo ganacsiga bulshadeena iyo shacabka Soomaaliland ba muhiimada weyn u leh. xubin kasta golaha wasiiradu waxay iyagu hormuud ka noqonayaan hawsha dhismaha wadadaasi ay $2,000 ku deeqeen ala shakhsi oo wadadaasi qayb ka noqon doona runtii. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku baraarujinayaa iyo furayaa dhammaan hay'adaha dawladda kale sidii ay ugu diyaar garoobi lahayn hawsha dhismahaasi wadadaas. geesta kale afayeenka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu wax ka iftiimiyay doorka xukuumadda ee daminta shaqaqooyinka ka jiray. xubno wasiirada ku maqnaa arrintii nabadeynta dhinaca galbeedka oo si fiican oo gobonnimo leh oo sharaf leh soo dhamaatay runtii. arrintaasi wasiirada halka tagay guddiga way ka warbixiyeen in labadii beelood ee halkaasi degmada la xariir ay si nabadgelyo ku soo dhamaatay. dadkii gacmaha la isku saaray nabad buuxda ay ka dhacday. nabadaas oo ka wada shaqeeyeen xukuumadda iyo golaha guurtida iyo dadkii deegaanka ay runtii xilkasnimo weyn ay iska saareen arrinta lagu dhameeyay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu bogaadinaya hambalyo u dirayaa beelihii labadii beelood halkaasi nabadaas iyo maslaxadaasi colaadii iyo waxay kala tirsanayeen ku bedelay bog nabadeed wada noolaasho wax isku ahaansho ku bedelay buu bogaadin iyo hambalyo u dirayaa. waxa kale uu bogaadinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ciddii hawshaasi ka qayb qaadatay wasiirada halka tagi iyo odayaashii iyo waxgaradkii kale ee golaha guurtida dhammaantood hambalyo u diraya. sidoo kale wuxuu hambalyeynaya beelaha deegaanka Gowsaweyne oo iyaguna bishii hore shaqaqaalka ku dhacday oo dhimasho keentay si nabada oo maslaxada oo walaalnimo ah uga heshiiyay runtii ayuu isna u dirayaa hambalyo. guud ahaan shacabka Soomaaliland wuxuu soo jeedinayaa nabadooda iyo maslaxadooda iyo wadajirkooda inay xoojiyaan. mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay dhismihii dhawaan lagu sameeyay airportka weyn ee caalamiga ah ee magaalada Hargeysa. warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxay noo soo diyaariyay waa kan mar kale wariye Ridwaan. mas-uuliyiinta wasaaradda duulista hawada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah ururada bulshada ee shacabka magaalada Hargeysa waxay dood adag ka yeesheen qaabkii iyo nidaamkii u hirgalay mashruuca dib u dhiska madarka magaalada Hargeysa. sidoo kale kulankaasi waxaa goobjoog ku ahaa oo warbixin dheer ka soo jeediyey shirkadda ku guuleysatay qandaraaska dib u dhiska madarka magaalada Hargeysa, kuwaas halkaasi ka jeediyey warbixin la xidhiidha qaabkii nidaamkii loo bixiyey qandaraaska madarka magaalada Hargeysa. waxaana kulankaasi oo socday muddo ka badan 3 saacadood lagu lafaguray sidii ku guuleystay mashruucii madarka magaalada Hargeysa. kulamadaasi iyaguna waxaa goobjoog ku ahaa wasiirka duulista hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Dr. Saad Ali Sharee. Dr. Rabi Ibrahimi oo ah sarkaalka ugu sareeya shirkadda Jana Group oo iyadoo ku guuleysatay dhisitaanka madarka magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in nidaam dheer loo soo maray in madarka Hargeysa la dhiso, isagoo sheegay in 7 shirkadood ay ku tartameen qandaraaska madarka magaalada Hargeysa. waxa uu tilmaamay in hanaan saxsan iyo shax saxsan lagu qaybiyay qaabkii iyo nidaamkii loo dhisi lahaa madarka magaalada Hargeysa. wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu sheegay in khubaradu ay muujiyeen xogta dhabta ah ee aanay siyaasadda mucaaridku haynin oo ah qaabka iyo nidaamka loo dhisay madarka magaalada Hargeysa. Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu ku dooday in wasaaraddiisa iyo xukuumadda Soomaaliland ee madaxweyne Sinaayo ay ku guuleysteen sidii loogu rabay dib u dhiska madarka magaalada Hargeysa, waxaana ku tilmaamay inay ahayd guul taariikhi ah madarka magaalada Hargeysa in dib lagu sameeyo. waxaanu yidhi Soomaalidu waxay ku maamahda xog moogi xaajo waa biya qofka daan xaqiiqo waxaan ku salaysan haynin waxa laga yaabaa inuu meeshu ula doono ula kaco. Sidii baanu sameynay daraasad baanu sameynay ku saabsan bal inaan ogaano dareenkan iyo ruumalka bulshada. waxa weeye waa uu sadigeed wuxuu u badan yahay xog la'aan iyo islaantii lahaa reer beelay maxaa reer ka abarsay dadkuba waa marka waxay u baahan tahay marka wax laga warramayo in haddii diin laga warramayo masaa'il cilmiya laga warramayo lagama min afwaah almashaayikh
afka culimada laga qaadaa masaajid muhiimad walba cidda haddii qofku buko wuxuu u tagaa dhakhtar haddii mid aan dhakhtar u akaayo halkan uu kaa helo dee naftu kaa gujinaya sidoo kale haddii la dhisayo mashruuc waxaa ka warramo khubarada gacanta ku haysa waxaa kale oo kula murmi kara nimankan iminka halkan fadhiya injineero aqoon u leh waxaa siyaasiyiin fadhi ku-dirir meheradoodu tahay iyo rag uun nuxurkooda ku ururay maxaa wax wanaagsan loo qabanaya loo horumaraya oo annagu waa see iminka annaga noogu qiimaysatay xukuumadan guntiga dambena hayo oo na soo jiidaya uun war mashruucan kama warrami karaa mudane marweyn beenaale markhaatigiisuu fogeeya mashruucan waxaa loo maamulay sidii ugu habboonay dowladdii inaad siisay baa gacanta ku haysatay malaa dadka qaarkiiba waxay moodayeen in annaga lacag naloo dhiibay waa taa golaha laga caddeeyey war lacag naloo dhiibay ma jiro dux iyo dufan naga soo gaadhayna ma jiro wax jeeb loogu sugayo waxa kalnaanu ku suganayna ma jiro wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka Soomaaliland oo isagu ka qayb galay kulankaasi ay maanta iskaga hor yimaadeen bulshada magaalada Hargeysa iyo mas'uuliyiinta wasaaradda duulista hawada Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ku faraxsan tahay waxa ka socda madaarka magaalada Hargeysa qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ururada bulshada haweenka dhalinyarada uqaasha abwaaninta iyo waxgaradka ayaa iyaguna halkaas waxay ku weydiiyeen su'aalo danandooriya oo la xidhiidha waxyaabaha iyo qaabka loo dhisay madaarka magaalada Hargeysa halkaas oo wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland iyo agaasimaha guudba Axmed Dalal Farax iyo Maxamuud Xaashi Cabdi ay si wada jir uga jawaabeen maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland mudane Khadar Xasan Cali Gaas ayaa dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliland halkaas oo maareeyaha Khadar uu soo dhameystay safar shaqo ah oo uu ugu baxay dalalka dibadda warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxa magaalada Hargeysa inoo soo diyaariyay waa kan wariye Ridwaan Caydiid Soomaaliland mudane Khadar Xasan Cali Gaas ayaa wadanka dib ugu soo laabtay kana soo degay garoonka diyaaraduhu ka haadaan Cigaal International iyadoo madaarka Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta iyo agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta iyo bahda telefishinka qaranka Soomaaliland maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa u mahadnaqay mas'uuliyiinta iyo shaqaalaweynaha ku soo dhaweeyay sida diiran maareeyaha telefishinka qaranka Khadar Xasan Cali Gaas ayaa safar shaqo ugu maqnaa qaar ka mid ah wadamada caalamka isagoo maareeyuhu intii uu safarka ku guda jirayna kulamo la yeeshay jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalalka uu maray maareeyaha telefishinka qaranka ayaa xidhiidh la sameeyay diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka mid ah hay'adaha warbaahinta ee dalalka uu maray oo Soomaaliland ka caawin doona saxaafadeeda dhinaca tababarada iyo aqoonta kor loogu qaadayo saxaafadda Soomaaliland maareeyaha telefishinka qaranka ayaa qolka nasashada ee VIP-da ee garoonka Cigaal International isagoo la hadlay warbaahinta Soomaaliland waxa uu ka waramay socdaalkiisa shaqo iyo tallaabooyinka uu ku guuleystay intii uu ku jiray safarada shaqo ee uu dalalka ku marayay isagoo amuraha ka hadlayna waxa kamid ah hadaladiisa ilaahay baa mahadle igu soo nabad celiyay wadankaygii waxaan muddo ugu maqnaa shaqo wadamada Yurubta markii horeysay waxaan tagay dalka Ingiriiska kadibna waxaan uga sii gudbay dalka Sweden oo aanu ka helnay casuumad halka waxaan kula kulannay hay'adan la yiraahdo Forum Seed ee u qaabilsan kaalmada wadankaasi Sweden kuwaasi oo ka wada hadalnay arrimo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa saxaafadda Soomaaliland isla markaana ay tababaro iyo kaalmo u siin lahaayeen saxaafadda reer Soomaaliland taasi oo ay nala qaateen waxa kale oo aan kula kulmay jaaliyada reer Soomaaliland ee halka ku dhaqan oo aan kulan balaaran la yeelanay kuwaasi oo is xog wareysanay uga waranay horumarka wadanku gaaray iyaguna iyo shaqada telefishinka oo ay aad iyo aad u soo dhaweeyeen kadib markii aanu xafiis rasmi ah ku yeelanay xarunta dalka Sweden ee Stockholm arintaas aad bay dawladda uga mahad celiyeen iyo xukuumadda Soomaaliland inay soo gaarsiisay telefishinka qaranka oo xafiis rasmi ah ku yeeshay ama studio magaalada Stockholm ee dalka Sweden waana mid wax weyn ka tari doona isku xidhka labada bulshada qurbajooga iyo bulshada ku dhaqan dalka gudihiisa sidoo kale waxaan la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda oo aan kulan ku wehelinay safiirka inoo jooga dalka Sweden iyo xubno baarlamaanka ka tirsan kuwaasi oo uga waranay horumarka Soomaaliland gaadhay
waxa kaloo aan kulan kula yeeshay magaalada London qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan halkaasi oo ugu xoog waranay dalka iyo hawlaha telefishinka qaranka uu hayo ummadda kadibna waxaan ka qayb galay shir caalami ah oo lagu qabtay magaalada Holland oo IPC layra shirkaasi oo TV-ga qaranka Soomaaliland lagu soo casuumad rasmi ah ka helay wuxuu ahaa shir iyo carwo isku dhex jirta oo lagaga hadlayay arrimaha saxaafadda iyo warbaahinta iyo gaar ahaan waxa kale lagu soo bandhigay horumarka adduunyadu ka samaysay qaybtan warbaahinta iyo tabinta tooska waxaan kula kulanno kale kulan gooni aan la yeeshay mas'uuliyiinta sare ee shirkadda Taicom oo kala hadalnay sidii kor loogu sii qaadi lahaa adeega ay noo fidiyaan maadaama ay nahay customer-kooga iyo horumarinta telefishinka qaranka iyo qaybtiisa satellite-ka iyo idaacadda quraanka kariimka iyo idaacadda radio Hargeysa labadaba aan idhaahdo radio Hargeysa oo labadaba ka tirsan waxa kaloon halkaa kulan kula yeeshay jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan Holland kuwaasi oo si aad u soo dhaweeyay horumarka mugga ballaaran leh ka muddadii 3 sano u dambeeyay ka xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo madaxweyne Axmed Maxamuud Siiraanyo ay ku talaabsatay aadna u soo dhaweeyay runtii waxyaabaha badan ee u qabsoomay bulshada reer Soomaaliland shirweynihii hoodaale ee beelaha galbeedka iyo waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Agabar oo ka tirsan gobolka Gabiley warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxaynu soo diyaariyay waa kan wariye Cali Caana Dhame shirweynihii hoodaale ee beelaha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa oo socday muddo 4 maalmood waxa gabagabadiisa marka laga yimaado ergooyinka ka qayb galayay si weyn uga soo qayb qaatay martinsharaf ay ka socota guud ahaanba beelaha ay kulmiso Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha shirka Sheekh Almis Yaxye Xaaji Ibraahim ayaa madasha ka soo jeediyay ugu horeynba wacdi diiniga isla markaana halkaasi ka akhriyay qodobadii go'aanka shirweynahaasi waxaa shirku soo saaray qoraalkan guud oo ka kooban baaq taageero iyo talo soo jeedin koow shirweynaha wuxuu si buuxda u garab taagan yahay jiritaanka dawladda Soomaaliland wuxuu taageero buuxda siinayaa halganka ka miro dhalinta ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadib martinsharafta beelaha ka socotay oo isugu jiray salaadiin ugaasiyo garaado jiif caaqilo odayaal waxgarad guurti ayaa dhammaantood u mahad celiyay beelaha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa shirweynahaasi uu kulmiyay isla markaasina ka waramay kaalinta beelahan ay kaga jiraan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay si weyn ugu bogaadiyeen shirkaasi hoodaale habka loo agaasimay iyo ergooyinka ka soo qayb galay iyo guud ahaanba go'aanada shirkaasi la iskula qaatay gabagabadii suldaanka guud ee beelaha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Cabdilaahi ayaa soo xidhay shirkaasi hoodaale waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa sidii xilkaskii karaamada lahayd iyo hogaamintii kartida faraha badan lahayd iyo tahligi iyo juhdigii faraha badan ay geliyeen kow gudiga hogaaminta shirka laba gudiga mustambeedka saddex gudiga ganacsatada iyo waxgaradka iyo cid kasta oo aqoonyahanka beeshu gudayo dabadba waxa kaloon mahad weyn u celinayaa ergooyinkii 750 ka ahaa oo maalintii horena gafka galoon 50 ka reebay 750 kaasi sidii xilkasnimada lahayd iyo habkii anshax ee shirkan markii uu socday ay u aqbaleen habkii anshaxa ee shirka sidii ay u aqbaleen waana qabuul baan leeyahay insha Allah bismillaah kariim laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha waxa halka aan ku xidhayaa xidhitaankii protokolka ahaa ee dhaqanka shirkii hoodaale waa xidhan yahay khayr buu ku xidhmay maskax furan buu ku xidhmay
caqli wanaagsan buu ku xidhmay caafimaad buu ku xidhmay wasalaamu calaykum wabilaahi towfiiq wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa soo bandhigay qalab cusub oo lagaga maarmi karo isticmaalka dhuxusha warbixin amurta ku saabsan ayaa waxaynoo soo diyaariyey waa kan wariye cali maxamed wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland iyo shirkadda Wonderberg ayaa maanta si wada jira ugu soo bandhigay xarunta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta ee magaalada Hargeysa qalabka loo yaqaano kaaftoon afka qalaadna loogu yaqaano Wonderberg waxaana loogu talagalay in lagu isticmaalo karinta cuntada wasiirka wasaaradda deegaanka Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa waxa uu soo jeedisay shacabka reer Somaliland inay isticmaalaan qalabkan loo yaqaano kaaftoon kuna bedelaan halkay ka isticmaali lahaayeen dhuxusha wasiiradda oo ka hadlaysaana waxa hadaladeedii kamid ahaa marka anigu anigii hore idinku sheegay cid kastaba nin walba ceesantaada ceelkeen bal dhuxusha waxaynu ku badbaadinayno aynu wada baahan maaragtay horumarka maanta aynu runtii aynu higsanayno ka wasaaradahan iyo ka dalahaanba biidnillah marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada nala eega anagu tijaabada waa wadayna idinkuna dhinacina ka wada ina baagagan wasaaraddaada tijaabooyinka dambana wasaaradahan anagu waanu sii galayna haddii la yidhaahdo waa tahay anagaa sii wadayno bal la sii eegayna mar walba u gudbin doona iyagana wixii warbixina kambanigu cusub iyaguna waa kuwaasoo dee waynala wadaan waynoo keeneen ilaa halkaasay keeneen anagan la eegayna shicib ahaan way la eegayaan marka dadku hadii jira waxaasoo hebel waa beentooda amba waa sidan ama waa kan qofkaa laga rabaa inuu tijaabiyo marka macluumaadka ay kambanigu bixiyaan dadka laga rabaa inay tijaabiyaan waa markii ugu horeysay ee wasaaradda deegaanku ay soo bandhigto qalabkan cusub ee lagu bedelayo dhuxushi isla markaasina loo yaqaano kaaftoon amba Wonderful علي محمد إبراهيم تلفزيون كقرن كهركيسة dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa dareenkooda iyo fikirkooda ka dhiibtay xeerka cusub ee horumarinta wadooyinka ee ay dhawaan meel mariyeen golaha wakiilada Somaliland warbixin marta ku saabsan ayaa waxay u dhacday sidan dadweynaha reer Boorame ayaa maanta dareen kala duwan ka bixiyay xeerkii golaha wakiiladu ansixiyeen ee ka hadlayay dhinaca cashuuraha kala duwan ee gaadiidka waxayna dadweynuhu taageero buuxda u muujiyeen xildhibaanada golaha wakiiladu sida ay u ansixiyeen xeerkaasi aniga waxay la tahay inayna xumayn wixii waddanka wax loogu qabanaya waxay la tahay mar haddii wadamaristani wadooyinka lagu samaynayo oo dib loo gelinayo wixii laga qaado baabuur gaadiidka ama dadkaba waxay la tahay inay fiican tahay markaynu u darno imikada inta socotay dhismaha ka socda nibira ilaa xeego ee xukuumaddu wado waxa weeyaan waa waxyaalaha bulshada laga qaadan weeye marka annagu xukuumadda waxaan leenahay cashuur kordhintani bulshada waxaan leenahay ha kala gartaan cashuurta la kordhinaya inay tahay mid dadka wadana iyo inay tahay mid shakhsiga wadana anu waxaan qabaa cashuur kordhintu inay tahay mid wadana shacabka والله حير كاسي أنا مستحبل ويا ودن خني مستقبل يوحولي هي ودوين كوا مستقبل كودن كا مستقبل كودن كنا ديا مقال يا سياحة جد لوجو دونا يا ودوين كسمية مركز ولا حير كاسي سحبي كل سحني رجعس هم بلينا ولا كوا كرنا إلى هنا وتصدون هذا أنا وصل نقدر كوا نيجي بيسن waan ku taageersanahay golaha aragtay hambaliyaan leeyahay dadkii fikirka keenay dawladana hambaliyaan leeyahay shacabka reer Somaliland waxaan leeyahay ha loo guntado yaani wax qabadka maanta wadamada maaragtay ka jira iyo maaragtay sidii bildhaamaha gobolada looga shaqeyn lahaa ha loo guntado ha loo hagar baxamaan leeyahay xirsi waxaan aamsanahay inuu yahay waliba aan ugu eexanayo inuu yahay niga ugu dhalinyarsan wasiirada xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamuud Silaayo sidaas darteed waxa leeyahay war xeerkaasi ma daba goono dadkana wasiirka waxaynu kula xisaabtamay maalinta lacagta inta la qabto wixii ajendeegu ahaa loogu talagalay wax lagu qaban waayay baynu ka hadli doonaa oran doonaa wasiir lacagtii xeerkii lagu wasixiyay shacabku ku ogolaaday halkeed marisaan oranayna laakiin inta ka horeysa dee barasho horteed ay nici waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama sidoo kale dadweynaha ku dhaqan gobolka Saraar ayaa si weyn u soo dhaweeyay xeerka cusub ee horumarinta wadooyinka ee ay meel mariyeen golaha baarlamaanka Somaliland
dadweynaha ku dhaqan gobolka Saraar ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay si buuxda uga qayb qaadanayaan qaadhaanka heerka qaran ee loo ururinayo wadada Ceergaabo. warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Jaamac Bood Cadde. shacabka ku dhaqan gobolka Saraar ayaa maanta cod xoogan waxa ay ku taageereen go'aankii ay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku ansixiyeen xeerka takaalifta horumarinta wadooyinka kaasi oo ay hore xukuumadda Soomaaliland golahaasi horgeysay. shacabka ku dhaqan gobolka Saraar ayaa maanta waxa kulan ballaaran oo isugu yimaadeen hoolka shirarka dowladda hoose degmada Caynaba ka soo qayb galay barasaabka gobolka Saraar Axmed Cali Nuur, maayirka magaalada Caynaba, maayirka hore degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Saleebaan, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Saraar kuwaasi oo dhammaantoodba cod xoogan ku taageeray xeerkaasi ee golaha wakiilada Soomaaliland ansixiyeen. waxaana sidoo kale halkaasi lagaga dhawaaqay qaaran kala duwan oo isugu jira lacag iyo xoolo nool kuwaasi oo lagu talagalay in laga qayb qaato dhismaha wadada isku xidha gobolada Togdheer, Saraar iyo Sanaag. madaxdii aan ugu dooranay sida madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ay ku taageerno ee muuqda ee aynu aragno inaynu taageerno ayaynu isugu nimi waxaynu kaloo isugu nimi in aynu dhaleecayno wixii hor taagan waxqabadkaa la qabanayo. caqabada ballaaran ee ka dhacday dadka ka mida ama mas-uuliyiin sare ah waxa ay ku hameeyeen wadada maanta ay ka sameeyeen iyo waxyaabaha la midka sidaa darteed ummadaynu maydanoole taageeraynaa oo aynu taageero naf iyo maalaba la dhinac taagannahay xeerka wadooyinka ee uu baarlamaanku ansixiyey xukuumadda soo jeedisay. waxaynu taageeraynaa horumarka dhinac kasta leh wadooyin leh waxbarasho leh ee uu ku tallaabsaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ayaynu u taageeraynaa. waxaan ka waqaadayaa inaan qofka ugu horeeya anigu awrka ugu horeeya Saraar lagu bixinayo horta wadada anaa bixinayo. in badan warbaahinta waa ka maqasheen niman xildhibaana ah kuwa xisaabtaba ah oo mar walba marka ummadda wax loo qabanayo dhaliil la soo fadhiista moogta waa marka wax loo dhaqaaqo sida waxay moodaa inay shaydaan ummadii ay ku noqdeen wadagtiino imiga haddaad weysaysay tiraado salaada atag istiraa shaydaanku marka ugu horeysa wuxuu ku xasuusiyaa waxa la waxaad ilowdiye waxaad u baahnayd marka hore xasuusan maysid moogta deenu waad ogtihiin waxqabadka cad ee muuqda ee aan qarsoonayn ee ay qabatay intii ay dalka haysay. waad ogtihiin inay shaqaalihii mushaharka u kordhisay, waad ogtihiin inay iskuuladii free ka dhigtay ay danyartii halkaa ka heshay, taageero weyn ay ka heshay, waad ogtihiin inay darajadii ciidamada bixisay oo aan maanta ku labisanahay. waxaa taageeraya soo jeedinta ama dhagaxdhiga madaxweynaha, waxaa taageeraya golaha baaskareeyey baa taageeraya. waxaan ka cudahay cidda diidan anigu wadanii baa mucaaradka ka mid ahay haddaanu nahay mucaaradka gobolka Saraar ee wadani waxaanu ku baaqaynaa kun neef baanu ku bixinaa xisbi ahaan annagu wadada haddaanu nahay wadada isku xidha Ceergaabo iyo gobolka Togdheer ama se waddanka wadda ku dhaxaysa waxaan ku taageersanahay naf iyo maal wax alaala wixii naga baxaba waan ku hortaaganahay. adiga hore sheegay xisbiga wadani waxaanu leenahay xisbiga wadani waxaanu leenahay waxaan ku taageersanahay wadda waxqabadka ay qabatay waanu ku taageersanahay anaga taageerinba waxaanu leenahay waanu taageersanahay ciddii ka qayb qaadatay xeerka soo jeedintiisa iyo ansixintiisaba waxaanu leenahay haddana gobolka Saraar waxaanu taageeraynaa si buuxda baan u taageeraynaa. Jaamac Bood Cadde, telefishinka qaranka Caynaba. madax dhaqameedyada dadweynaha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Xiis ee gobolka Sanaag ayaa si weyn u soo dhaweeyay xeerka cusub ee horumarinta wadooyinka Soomaaliland. xeerkan cusub oo ay dhowaan ay meel mariyeen baarlamaanka Soomaaliland ayaa warbixin amuurta ku saabsan iyo wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sanaag waxa inoo soo diyaariyay waa kan wariye Saraaf. qaar ka mid ah duqeyda cuqaasha waayeelka aqoon-yahanka iyo dhalinyarada deegaanka degmada Xiis iyo Ceergaabo ayaa shir jaraa'id ay maanta ku qabteen hotel Gubaad ee magaalada Ceergaabo waxa ay si ballaaran ugu taageereen xeerkii takaalifta horumarinta wadooyinka ee ay dhowaan ansixiyeen golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa kaloo dadkaasi shirkoodan jaraa'id ay ku cadeeyeen sida ay uga xun yihiin in xildhibaankii ay deegaankooda ka soo doorteen oo si bareera uga hor yimaado xeerka lagu horumarinayo wadooyinka dalka isagoo og bay yiraahdeen rafaadka iyo xanuunka ay wadada Sanaag ku haysay bulshada deegaanka laga
la soo doortay iyagoo intaasna ku laadhay in barnaamijkan lagu horumarinayo wadooyinka dalka ay kaga qayb qaadan doonaan maskax muruq iyo maalba waana kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya. madaxweyne no wadada mar haddaa taaba dhagax dhigtay oo qalbigaaga iyo la qadarayo cilmigaaga uu noqday wixii aan ku badan qaaday waa oofinayaa wadada naf iyo maalboole barbartaaganahay waa koodin shaqaynaynaa madaxweyne wax alla wixii aad ku shaqaysay ee muwaadannimo ah ee horumara shacabka Soomaaliyeed waa kugu barbartaagan yahay ha u biqin waxaanu hambalyaynaynaa oo si gaar ah u hambalyaynaynaa xildhibaanadii u codeeyay in la sameeyo wadada xeerkii ay dee ku ansixiyeen aad iyo aad ayaanu ugu hambalyaynaynaa ma naafilayn in reeyta waanu soo sugaynay 8 sanado oo la dalka u soo kordhiyay markii wadadii ay soo baxday u dhaxaysay Ceergaabo iyo Burco oo in badan loo oomanaa inuu ka hor yimaado waa mid la yaab ah mid anaga noo fadhiyana mahriij oo meesha loo joogo reer sanaagna uga joogo wax qabadkana diyaar baanu nahay jidkana waa la samaynayaa hana soo maray adigu jid dhulka u doono annaka oo waayeel cuqaal ah dhalinyaro waxaanu leenahay maanta guusha la gaaray aad iyo aad ayaanu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha anka reyte waxaan leenahay wax badan oo wax qabada iyo halkaanu ka eegaynay markii la soo qaadqaaday wadada Sanaag haddii aad istiri maamulkaad iyo annaga baad caqabad nagu dhex noqotay oo caqabad nagu dhex ahayde haddaad istiri wadadaana caqabad ku noqo nasiib darro adiga ku taalla weeyaane waa furmaysaa ay adigu ha soo marin berito xildhibaanadu qaar waxay noqdeen xildhibaano qaarna waxay noqdeen xilbiyaal in aanu deegaanka xiis iyo Ceergaabo in aanu halkan ka iftiimino taageerada aanu hayno waxqabadka ee muujisay dawladdu weliba aad iyo aad waxaan ugu sii hambalyeynaa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo dhagaxa uu noo dhigay wadada dheer ee ahayd wadada noo gashay wadnaha waxaan aaminsanahay haddii aan nahay beesha inaan naf iyo maalba aan u huro ayaanu halkan doonaynaa ka iftiimino waxaan baa aaminsanahay mucaaradadii ay dhamaatay marka waxaan leeyahay anigu adeer gaariga dhaqaaqay soo raaca wixii soo raaciyo wixii kalow adaa yaqaan de habaaskaaga iska hadaaf halkan waxaanu ku hambalyeeynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo dawladda isu kaashatay iyo dadweynahaba isu kaashaday wadada Sanaag iyo isku xidha Burco wadadaas qabyo waxay ahayd 8 sano xildhibaanada ansixiyay xeerka wadooyinka iyo madaxweynaha dhagax dhigay wadada inta waa hambalyeeynaa waxaanuna duraynaa xildhibaanada diiday ka hor yibi xeerka ansixinta wadooyinka khaasatan reyti ومحمود محمد حسن صراف تيفي قرنك سوماليلاند أرقابو agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay kulan ballaaran oo lagaga hadlayay adeegyada kala duwan ee ay qabato wasaaraddaasi warbixin amurta ku saabsan ayaa waxay u dhacday sidan kulan howleedkooda muddo 2 maalmood ah ka socday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa kaasi oo ujeedadiisu ahayd qiimeyn iyo qabiyatirka lagu sameeyay qorshe howleedka 3 bilood ee la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha ay wada shaqeynta leeyihiin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cismaan Xuseen Warsame ayaa sheegay in shaqo marka la qabanayo in qiimeyntu u noqoto mid lagu ogaanayo midhaha ka soo baxaya iyo wixii qabiyo ka noqday hawshaasi siyaasadda wasaaradda caafimaadka ee adeegyada bulshadana ay mar walba ay waajibaad tahay in la libin laabo adeegyada caafimaad ee bulshada ay u baahan tahay agaasimaha waaxda qorsheynta Khadar Maxamuud Maxamed oo isagu xidhitaanka kulan howleedkan ka hadlay ayaa sheegay in qorshayaasha caafimaad ee wasaaradda ay ahaayeen mid ay si wadajir ah u qorsheynayeen aqoon-yahanka wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha aanu gacan saarka leenahay wada shaqeyntu naga dhaxaysa buu yiri isagoo agaasimaha sheegay in hawshan ay u fududeysay isfahanka iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gabagabadiina waxa hadal ka soo jeediyay khubaro caafimaad oo iskugu jira muwaadiniin reer Soomaaliland iyo khubaro caalami ah ee wasaaradda caafimaadka ay wada shaqeynta leeyihiin
dhinaca kalena shir howleed ay iska kaashanayeen wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda UNFPI oo soconaya muddo 5 cisho ah kaasoo ku saabsanaa kala dheeraynta ubadka iyo faa'iidada ay leedahay ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa. waxaa kulankani ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Xuseen Warsame, agaasimaha hooyooyinka iyo dhallaanka wasaaradda caafimaadka Cabdiraxmaan Xirsi Heeliyo, Dr. Khadra Xaaji Ibrahim oo khabiir aqoon u leh cudurrada haweenka iyo madaxa hay'adaha UNFPI ee Soomaaliland. agaasimaha hooyooyinka iyo dhallaanka ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiraxmaan Xirsi Heeliyo oo halkani ku bogaadiyey ka soo qaybgalayaashan oo dhammaan 40 xubnood oo ka kala socday gobolada dalka kuwaas oo ku dheeraaday inay uga faa'iideeyaan bulshada wixii ay ka barteen aqoon isweydaarkani tababarkani u socday. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Xuseen Warsame oo gabagabadii kulankani soo xidhay ayaa ku booriyey umulisooyinkani ka soo qayb galay kulankan inay ku dabaqaan aqoonta ay kororsadeen howlaha shaqo si loo buuxiyo adeegyada caafimaad ee dalka ka jira ay u baahan yihiin dhallaanka iyo hooyadu. agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa deeq raashina u qaybiyey dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxay u dhacday sidan. agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha uu weheliyo xildhibaan Nacnac ayaa deeq raashin gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadaha stadiumka Cabdi Iidaan ee degmada Axmed Dhagax. deeqdan oo ay keentay wadanka hay'adda Life International oo la gaarsiiyay 1400 oo qoys oo danyar ah oo degmada ku dhaqan. agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha mudane Cabdullaahi Ismaaciil Faarax ayaa ka warramay qaybinta deeqdan raashinka ah isla markaana sharaxay kaalinta ay ka qaadanayso nolosha dadka jilicsan ee deeqdan la gaarsiiyay. isagoo agaasimaha guud ee beeruhu sheegay in qaybinta deeqdan ay gacan weyn ku lahayd madaxtooyada bulshadana ay baahi weyn u qabteen inay hesho gurmad deeq raashina ee la soo gaarsiiyey. waxaanu soo qaybinay 900 oo qoys oo hore oo aanu ku soo qaybinay stadiumka saakana xaafadda Cabdi Iidaan waxaanu ku qaybinaynaa 500 oo qoys raashinkood 1400 qoys raashinkooda waxa dawladdu ka soo heshay hay'adda Life International oo caawimada Soomaaliland ugu deeqday markay hay'addu tiri caawimadaasanu haynaana jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan madaxtooyada waxay go'aamisay in raashinka loo geeyo labada meelood ee stadiumka iyo Cabdi Iidaan. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyo xukuumadda Soomaaliland sidii hal la gaarsiiyay deeqda. xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka mid ah madaxda golaha wakiilada ayaa iftiimiyay tirada qoys ee la gaarsiiyay deeqdan kana warramay kaalinta ay xukuumaddu ka qaadato kobcinta adeegyada bulshada. deeqdanna ay baahi weyn u qabeen bulshada la gaarsiiyay. waxaan leenahay qofku danyarka meesha madaxweyne ama madaxweyne meesha danyarku joogtaba wixii hal la gaarsiiyo oo wixii ilaahay roobkan meel wada gaarinay oo meel ku daa meel hal wada gaarsiiyo leeyahay saasay iska warhayn doonaa soo duceeya marka waxaan leenahay war xumo tashiilka meelaha maraya iska ilaaliya dadweyne iska ilaaliya baan leenahay ee la dawladdu wax ma qabato wayna ka arkaya taas iyo mar walba waan qaban doonaa war xumo tashiilka iska ilaaliya wanaagiina wadna iyo horumarkiina waa dadka horumarka nacab horumarka Soomaaliland nacab iska ilaaliya waxa leeyahay iska ilaaliya dadka horumarka nacab annaguna waan ilgaar aan ku eegi doonaa. sarkaal ka tirsan hay'adda Life International ee deeqda wadanka keentay ayaa sharaxay ujeedada deeqdan iyo waxqabadka hay'addu ka fulisay dalka Soomaaliland una mahadnaqay in kasta oo isagoo u mahadnaqay sida ay u fududeysay qaybinta deeqdan xukuumadda Soomaaliland. qaar ka mid ah dadka jilicsan ee deeqdan la guddoonsiiyay ayaa u mahadnaqay cid kasta gacan ka geysatay qaybinta deeqdan la soo gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Axmed Dhagax. deeqdan oo ka koobnay daqiiq saliid iyo sonkor iyo bariis oo dadka ay gaarsiiyay. wararka kale daawadayaal aanu idin hayno ayaa waxa ka mid ah dowladda hoose ee magaalada Hargeysa waxay bilowday hirgelinta waddo cusub oo mari doonta bariga madaarka magaalada Hargeysa taas oo ka yareyn doonta saxmadii madaarka wadooyinka mara. xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa iyo mas'uuliyiinta dhulka dowladda hoose magaalada Hargeysa ayaa si wada jira waxay u sheegeen in wadadan ay toos ugu xirmi doonto wadooyinka xaafadda Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa.
agaasimaha dhulka ee dowladda hoose magaalada Hargeysa Cabdullaahi Ubax oo faahfaahin ka bixinaya wadadan muhiimadda u leedahay shacabka Soomaaliland iyo dhinaca nidaamka nabadgelyada ayaa waxa uu yiri wadadan cad wada ka bayraysa oo laamiya oo kulay ujeedooyin fara badan laga leeyahay marka la eego isku xirka magaalada ahnatii hadiya jeer dadku waxay ka soo wareegayaan laamiyada shabarka airportka la imanayo laakiin taas ka bilownay waxay ka bayraysaa halkan jidka cad wadadan cad waxay ku dhaadhacaysaa maxamed mooge wata imka tilmaan ahaan isqortay si muuqata wala dhameystirayaa waxay ka jireen laami lagu shubi doono xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka ee caasimadda magaalada Hargeysa waxay guul taariikhi ku tilmaameen in wadadan muhiim u noqon doonto caasimadda magaalada Hargeysa iyagoo ku dhawaaqay in saxmadda dhinaca gaadiidka caasimadda magaalada Hargeysa ay yareen doonto sidoo kale faa'iido badan ay u leedahay security-ga ama nidaamka nabadgelyada madaarka magaalada Hargeysa xildhibaanada oo ka hadlayay muhiimadda wadadan cusub ayaa waxa ka mid ahaa hadaladoodii waxa weeye waxaanu joognaa imka airportka barigiisa wadada ka timaada hawd ee soo gashay airportka laamidii hore ee berbera qaban jirtay ee badar wanaag marta wadadaas aanu dhexda ka jarray wadooyinka dhammaan ka yimaada dhinaca hawd ee meegaaga ka yimaada ee uubaala ka yimaada ee xaabaala ka yimaada ee soo galay airportka dhammaantood waxaanu ugu talagalay in ay wadadan soo maraan baabuurta dowladda hoose magaalada Hargeysa ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa waday hawlgalo ballaaran oo dib loogu sameynayo wadooyin cusub kuwa kalena lagu dayactirayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal oo ay weheliyaan isu duwayaasha duulista iyo hawada iyo warfaafinta gobolkaas ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo lagaga hadlayo daryeelka iyo ilaalinta caruurta warbixin amurta ku saabsan ayaa waxay noo soo diyaarisay wariye hodan xarunta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal ayaa maanta lagu qabtay kulan ballaaran ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada Ayodha oo lagaga hadlayay ilaalinta iyo daryeelka xuquuqda caruurta waxaana munaasabadaasi ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal isuduwayaasha wasaaradaha dhaqanka faafinta iyo wacyigelinta isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iskuduwaha duulista iyo hawada xoghayaha dowladda hoose ee magaalada Boorama iyo ururka dhalinyarada Ayodha iyo dadweynaha u tiro badan waxaana kulanka ugu horeyntii ka hadlay agaasimaha ururka dhalinyarada Ayodha Siyaad Cali Cumar waxaana ka waramay ujeedada kulankaasi waxa ku saabsan tahay daryeelida caruurta kala duwan ee ku nool gobolka Awdal kuwaas oo tacadiyo kala duwan ku yimaadaan iyadoo jiraan caruur fara badan oo dalbashadii iyadoo jiraan xadgudubyo fara badan oo loo geysto caruurta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Abubakar Xasan Caafi suduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dalxiiska Cabdiwahaab Yuusuf Ibraahim iyo suduwaha wasaaradda duulista iyo hawada Mustafa Ibraahim ayaa ballan qaaday inay kala qayb qaadan doonaan kaalintooda ku aadan ilaalinta xuquuqda caruurta waxa isaguna halkaasi ka hadlay xoghayaha dowladda hoose Maxamed Cabdi Xaashi Xamari iyo xildhibaan Saare Axmed Cabdilaahi sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay haween iyo waxgarad kala duwan kuna dheeraaday inay ka qayb qaadan doonaan kaalinta ilaalinta xuquuqda caruurta sidoo kale munaasabadaasi waxa lagu soo bandhigay riwaayado ka turjumaya daryeelka caruurta iyo suugaan iskugu jirta heesiga gabayo ka hadlayay ilaalinta xuquuqda caruurta wahadan caafi TV-ga qaranka magaalada Boorama wararka kale naga soo gaarayo gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa waxa kamid ah dowladda hoose degmada Laascaanood oo hogaaminaysa koox injineer ah ayaa maanta bilaabay cabiridii u dambeysay ee wadada tagta isbitaalka Laascaanood waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood wareyntan waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta Cabdi Khayre Diriir ayaa sheegay in ay maanta suura gashay in la bilaabo wadadaasi waxaana dhankooda soo dhaweeyay sameynta wadada dhakhtarka Laascaanood qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo ugu baaqay dadweynaha reer Laascaanood iyo waliba ganacsatada iyo qurbajooguba inay qaybtooda ka qaataan sameynta wadada isbitaalka Laascaanood waxaana ka hadlay kooxda injineerada ah oo sheegay inay cabirayaan cabiridda dhulka taasoo in muddo ahba ay ku howlanaayeen si loo bilaabi lahaa
wadada tagta cisbitaalka laascaanood ah waddo ay kala kulmaan dhibaatooyin badan gaadiidka isticmaala iyo weliba bukaan socodka waxay maanta suuro gashay in cabirkii u dambeeyey laga qaado waa barkad cumar axmed telefishinka qaranka somalilan laascaanood kulan ballaaran oo ku saabsan dardargelinta wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha caruurta ayaa lagu soo gabagabeeyey hotel guuleed oo ku yaala magaalada hargeysa warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxaynoo soo diyaariyey waa kan wariye jacfar kulankan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka kala socda wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada cadaaladda waxbarashada maaliyadda arrimaha gudaha iyo sidoo kale caafimaadka ayaa iyana sidoo kale waxaa ka soo qayb galay daayar kala duwan oo ka kala socotay caruurta la nool waalidiintooda iyo sidoo kale caruurta ku nool xarumaha agoomaha iyo daribjiifka iyo xubno ka socda caruurta baahiyaha gaarka leh kulankan oo ujeedadiisu ahayd in wixii tabasho iyo baahiyo ah ay qabaan caruurtaasi sidii loo gaadhsiin lahaa hay-adaha dowladda ee ka mas-uulka isla markaasina ku shaqada leh ee ay ka midka yihiin wasaaradaha si kor aan ku soo xusnay iyo sidoo kale sidii wasaaradahaasi ay u kordhin lahaayeen isla markaasina ay u dardargelin lahaayeen howlaha waxqabad ee dhinaca caruurta waxaa ugu horeyna madashaasi ka hadlay xidhitaankii xildhibaan xareed oo ka mid ah golaha guurtida somalilan iyo sidoo kale xildhibaan maxamed xuseen oo ka mid ah golaha wakiilada waxaanay labaduba ka warameen in golayaal ahaan ay ahmiyad gaara siinayaan wax u qabashada caruurta iyo sidoo kale wax ka qabashada dhinacyada xeerarka iyo shuruucda la xidhiidha xuquuqaadka caruurta reer somalilan gabagabadiina waxaa madashaasi ka hadlay kusimaha agaasimaha hay-adda wadaniga ah ee ambican xasan ismaaciil oo sheegay in barnaamijkan ay gacan ka siisay save the children islamarkaasina ay fulinayso ambicam waxaanu intaasi raaciyey in uu rajaynayo in ay ka soo baxaan waxyaabo midho dhal ah maadaama uu yidhi muddo 2 cisho halkaasi la fadhiyey lagu naaqashieyey laguna gorfaynayey baahiyaha caruurta daada yar wararka kale daawadayaal aanu idiin hayno ayaa waxaa ka mid ah jaamacadda alfa kuliyadeeda qaybta caafimaadka ayaa maanta soo bandhigtay dood cilmiyeed ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka dalka islamarkaana ardayda jaamacadda alfa ee dhigata qaybta caafimaadku ay kaalin muhiima kaga qayb qaadan lahaayeen horumarka caafimaadka dalka islamarkaana ay wax ku soo kordhin lahaayeen wadanka gudoomiyaha jaamacadda alfa professor cabdiraxmaan maxamed maal oo ugu horeyn kulankaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay caafimaadku u leedahay guud ahaanba bulshada somalilan waxaana uu sheegay ardayda jaamacadda alfa inay rajeynayaan inay dalka wax badan ku soo kordhiyaan markay waxbarashadooda dhammaystaan isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi maanta halkan waxaad iskugu timaadeen inaad falanqayn dheer iyo aqoon isweydaarsi maadaama muddo badan aad ku soo jirteen waxbarashadii oo wixiinu qoraan uu ahaa bal in aad fikirkiina cabirtaan oo ray isweydaarsataan oo nin waliba wixii uu soo bartay aqoontiisii uu soo bandhigo oo wax ku soo kordhiyo waxaad baranaysaa aqoontu maaha wax intuu macalinku kuu dhigo oo xaashiyadana kuu qorqoro dabeedna intaad laalaabto imtixaanka lagaga qaado oo intaad soo xafiddo maaha aqoontu intaa way ka ballaaran tahay aqoontu waxa weeye ta intaad laybareeniga tagto wixii macalinku waddadiibu ku tusaya waddada ayuuba macalinku tusaya laakiinse waddada marka macalinku ku tuso waxa weeye inaad waddadii marto halka maanta waxaa idinku diyaara professor mustafe oo isagu iyo cabdisalaam oo inta halkan fadhidaan wax badan ka hadli doona loo qalaqayn doona cudurkan la yidhaahdo ama xanuunka la yidhaahdo maxaan dhahdaa abutaasiska ama aan idhaahdo inagu joyska oo noocyo badan ah oo weliba uu nagu soo kordhay xanuunkan mid ka mida oo laga joyska cad oo aad loo kala qaado bal inaad wax badan ka ogaataan maadaama aad tihiin dadkii mustaqbalka ee britood wax weyn doonaya ummadda inay u taraan dr cabdisalaan cabdilaahi jaamac oo ah madaxa qaybta caafimaadka jaamacadda alfa ayaa isaguna ku baraarujiyey ardayda jaamacadda alfa inay dalka ku soo kordhiyaan kaalin la taaban karo islamarkaana ay ka qayb qaataan horumarka dalka ee dhinaca caafimaadka seminaaradanna waxaan ugu talagalnay ugumaanaan talagelin inaan bixno une
waxaan ugu talagalnay kaabid ardayda in laga kaabo dhan walba oo aan uga kaabno marka aanu joogno jaamacadda la joogo wixii la isku dhigay iyo syllabuskii iyo wixii course wixii oo dhan in la dhigto tanina ay noqoto cawaaqeybta taagan dalkeenna ka taagan xanuunada taagan caafimaadkooda siday tahay sanitationkooda waxoo dhanba inaynu up to date aynu iska dhigno oo waxaan idinkoo arday ah haddana aad xoog ula socotaan ama aad wax badan aad kula socotaan cudurada caafimaadka hadba sanitation hadda wax halka maray iyo sida u maray waxaa kaloo aanu leenahay oon is leenahay idinkoo arday ah in aad idinkuna noqotaan xooggiina iyo aqligiina iyo maskaxdiina intaan laga faa'iideeyo aynu noqono meel research badan samaysa ugu dambeyntiina qaar ka mid ah ardayda jaamacadda alfa ayaa soo bandhigay siday diyaarka ugu yihiin in bulshada Soomaaliland ay ku soo kordhiyaan wixii ay barteen. haatana daawadayaal kusoo dhawaada qaybo ka mid ah wararkii dibadda. xoogaga sirdoonka dalalka reer galbeedka ayaa shaaca ka qaaday weerarkii dhowaan lagu qaaday xarun ganacsi oo ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya in uu ahaa weerar aad u qorshaysan isla markaana xooga ku qabsaday ay ahaayeen kuwa markaasi weyn ugu diyaar garoobay weerarkaas. xoogaga sirdoonka reer galbeedka ayaa sheegay inay heleen warar sheegaya iyo waxyaabo tibaaxaya in marka xooga ku galay ee taabacsana xooga al-shabaab ee ka dagaalama dalka Soomaaliya in ay tababaro military aad xoog badan ay ku soo qaateen gudaha dalka Soomaaliya. xooga sirdoonka reer galbeedka ayaa sheegay sidoo kale weerarkii lagu qaaday xarunta ganacsi ee magaalada Nairobi in ay dadka ka qayb qaatay weerarka badankooda ay haysteen dhalashooyin dalalka reer galbeedka ah balse markii hore ay ka soo jeedeen jinsiyadda Soomaalida. weeraradii lagu qaaday wadanka Kenya siiba caasimada magaalada Nairobi ayaa waxaa la sheegay in ay dhimashadu haatan marayso ilaa 70 iyadoo dad aad u tiro badan ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha wadanka Kenya ayaa sidoo kale isaguna mar uu la hadlayay saxaafadda sheegay in ay tallaabooyin ka qaadi doonaan dhammaan dadkii ka dambeeyay arrinka iyaga oo sheegay in ay haatan ciidamadooda ay ku tala jiraan isla markaana ay wadaan baaritaano aad u xoog badan oo lagu wado goobo markaa lagu tuhunsan yahay meelihii laga soo abaabulay weerarkii argagixisay ee ka dhacay magaalada Nairobi. dhinaca kalena cabsi xoogan ayaa la soo gudboonaatay bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya kadib markii ay soo bixeen ifafaalayaal muujinaya in weeraradii lagu qaaday xarunta ganacsi ee magaalada Nairobi ay u badnaayeen markaa dad ka soo jeeda ama dad markaa jinsiyadooda ay tahay Soomaalida. dhulgariir aad u xoog badan ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Pakistan halkaas oo duleedka magaalada Karachi ay dhimashadu haatan marayso ilaa 300 oo ruux. dhulgariirkan oo cabirkiisu uu gaarayay 7.7 ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan isla markaana burburiyay dunyo aad u xoog badan oo ku dhaqan wadanka Pakistan. dhulgariirkan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in uu gaaray magaalada New Delhi ee wadanka India halkaas oo dhulgariirkan uu ahaa mid aad u xoog badan oo dad badan ay haatan lagu laayahay amaba ay ku jiraan guryaha dumay ee ku yaala qaybo ka mid ah tuulooyin aad u fara badan oo ku yaala hareeraha magaalada Karachi. dhulgariirkan ayaa waxaa la sheegay inuu saameyn weyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka guud ahaan dalka Pakistan iyo guud ahaan xuduudaha ay la leeyihiin dalka India. dhulgariirkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu xumaa ee muddo 2 bilood ah ka dhaca deegaanada iyadoo la sheegay haatan in dad badan la laayahay oo markaa loo malaynayo in ay ku hoos jiraan guryaha dumay ee ku yaala qaybo ka mid ah wadanka Pakistan. madaxweynaha cusub ee wadanka Iran Xasan Rouhani oo la hadlayay hay'adda Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa ballan qaaday inuu dalkiisu wada shaqayn buuxda u la yeelan doono hay'adda Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa. madaxweyne Xasan Rouhani ayaa sidoo kale sheegay in wadanka Iran aanu khatar ku ahayn ammaanka dunida isagoo oo sheegay in uu si buuxda ula shaqayn doono hay'adaha kala duwan ee caalamka ee ka shaqeeya dhinaca nabadgelyada. wadanka Iran ayaa sidoo kale madaxweynahoodu waxa uu meesha ka saaray in ay ku tala jiraan samaysashada hubka nuclearka isagoo marar fara badan ku celiyay in ay u samaysanayaan hubkaas amaba quwadda nuclearka in ay ka dhaliyaan marka aalada korontada. dalalka reer galbeedka ayaa ku eedeeyay wadanka Iran in uu ku tala jiro in uu samaysto hubka nuclearka taasoo markaa cabsi gelisay guud ahaan caalamka oo dhan iyadoo cunaqabateyn xoogan lagu soo rogay wadanka Iran. madaxweynaha cusub ee wadanka Iran Xasan Rouhani ayaa u muuqda mid si weyn ula shaqeynaya dalalka reer galbeedka iyo hay'adda Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa si markaa meesha looga saaro tuhunka lagu tuhunsan yahay in wadanka Iran uu haysto hubka nuclearka.
dalka Iiraan ayaa dalalka reer galbeedku ugu hanjabeen inay cunaqabatayn aad u ba'an saari doonaan isla markaana qorsheeyay weerar military oo markaa lagu qaado goobaha lagu tuhunsan yahay inay yaalaan hubka nuclearka ee lagu tuhunsan yahay inay haystaan dalka Iiraan. halka daawadayaal waxay noogu dhamaaday war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo idinka imanayay telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada Stockholm ee cariga Sweden oo anigoo ah dalmar iyo dhammaan saxafiyiinta telefishinka qaranka Somaliland ay ga qayb qaadatay wararkan waxaan daawadayaal idinka ka tageynaa inta aynu aragti noocan oo kale ah wada ku kulmayno sida iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.